qaarka horreeyo hodanaana dhaafe halkii loogu mahadnaqay ka habaabi mayside kii noo hagaage assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca dowladda jamhuuriyadda somalilan waxaan idinku hambalyeynayaa doorashada sanadka cusub ee 2026. sanad kasta oo cusubi waa fursad kale oo ay tahay inaynu si dhab ah isu qiimayno qof ahaan iyo qaran ahaanba, inaynu dib ugu noqonno guulaha aynu ka gaadhnay shaqooyinkii inoo yaalay sanadkii hore, casharada aynu ka baranayno caqabadihii aynu soo marnay, iyo inaynu dejisanno qorshayaasha shaqo ee sanadka cusub aynu ku gaadhayno hiigsigeenna qofeed iyo ka qaranba. sanadkii hore waxa uu qarankeenna u ahaa sanad hoodo badan oo ay shaqooyin iyo mas-uuliyado badan gudanay. waxau ahaa sanad nabadeed oo aynu soo afjarnay colaado iyo khilaafaad xanuun badan, sanad aynu xoojinay midnimada bulshadeenna, korna u qaadnay awoodda iyo kartida ciidamadeenna iyo hay-adaheenna ammaanka ee mar kasta heeganka u ah ilaalinta dalka iyo sugidda xasiloonidiisa. waxa uu ahaa sanad aynu kor u qaadnay dowlad wanaagga, shaqo fiicanna aynu ka qabannay dib u habaynta cadaaladda. dhaqaalaha waxaynu ka galnay dadaallo badan oo ay ka mid tahay inaynu wax soo saarkeenna u raadinay maalgashi dibadeed iyo mid gudo ah labadaba. waxaynu ka filaynaa natiijo kor u qaada kobaca dhaqaalaheenna. waxaynu dib u eegnay qiimaha iyo helitaanka adeegyada nolosha muhiimka u ah oo ay ka mid yihiin biyaha, laydhka, waxbarashada iyo caafimaadka. waxaa sidoo kale inoo ahaa sanad aynu guul la taaban karo ka gaadhnay diblomaasiyadda iyo xidhiidhka caalamiga ah, kaas aynu ugu dambeyntii 34 sannadood kadib aynu maanta ku biirnay dowladaha la aqoonsan yahay ee dunida. wuxuu sanadkan cusubi inoo bilowday inagoo kaalin muuqata ka joogna fagaarayaasha muhiimka ah ee dunida, inagoo xidhiidho iyo iskaashiyo koraya oo cusub dunida la yeelanayna, inagoo codkeenna laga maqlayo meel ka sarreysa sidii hore, innaga oo sii xoojinay kaalintii mas-uuliyadeed aynu kaga jirnay xasiloonida, iskaashiga iyo horumarka gobolka iyo dunidaba. walaalayaal, waxay noo bilowday sanad cusub. waa fursad aynu ku sii dhammaystiri doonno shaqooyinka inoo socday, hindisayaasha iyo howlaha kale ee waaweyn ka shaqayn doono insha allahu, innaga oo intii hore ka sii adag kana waaya aragnimo badan. geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan dr cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxa uu sheegay in sanadka 2026 uu ahaa sanad guulo la taaban karo laga gaadhay diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga, iyadoo somalilan muddo 34 sannadood ay ka mid noqotay dowladaha la aqoonsan yahay caalamka. waa sanad aynu alla ka rajaynayno inuu inoo sii lamalaabo guushii iyo horusocodkii sanadkii hore, inuu inoo noqdo sanad aynu ku sii korayno aqoonsiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda somalilan sugayso. sanadka cusub ee 2026 waxaynu u bixinaynaa sanadka aqoonsiga iyo midnimada. waxaan idinku baaqayaa inaynu daacadnimo isaga kaashanno, inagoo gacmaha ishaysanna aynu wada ilaashanno dalkeenna, fashilinana cid kasta oo hageerdaamadiisa ka shaqaynaysa. waxaan alla ka baryayaa inuu inoo noqdo sanad badhaadhe iyo mid barwaaqo, sanad farxad iyo bishaarooyin kale oo waaweyn inoo xambaarsan. waxaan ku soo xidhayaa qayb ka mid ah murtidii abwaan xuseen aw faarax dubbad. qaarka horreeyo hodanaana dhaafe halkii loogu mahadnaqay
ka habaabi mayside kii noo hagaage noqon loo hanweyn yahay. allaha ka dhigo sanad kale oo somalilan horumar iyo aqoonsi buuxda u kordho. alleh ha ilaaliyo somalilan dadkeeda iyo dalkeeda.